kulanti wacan oo wanaagsan idil ahaantiinba saaxiibayaal ku soo dhawaada wax ka bara channel muuqaalkeenan maanta waxaynu kaga hadli doonaa 10 caado oo haddii aanad ka fogaan burburin karo noloshaada aynu bilowno number 1 adoo suga inaad maalin wax qaban doonto ma leedahay caadada ah inaad tiraahdo maalin baan jimicsiga bilaabi doonaa maalin baan mashruuca bilaabi doonaa maalin baan joojin doonaa cabista sigaarka maalin baan ganacsiga bilaabi doonaa maalin baan miisaankayga inaan dhimo bilaabi doonaa caadada noocan ahi waa mid ka mid ah caadooyinka noloshaada hoos u dhigi kara in badan oo inaga mid ahi waxaynu sugnaa inaynu maalin wax qabanno oo aynu bilowno oo aynu sugno maalintaasi inay timaado maalintaasina lagaba yaabo inaanay imanba taasina waxay sababaysaa inaynaan gaadhin riyadeeni adigoon qorshe u dejisan xagga aad ka leedahay maalin baan waxaa samayn doonaa jooji inaad tidhaahdo hadalka oo ku bedel waxaan rabaa inaan sameeyo arrintan waxaan bilaabayaa waqtiga ayman waxaan raacayaa qorshahan iyo tallaabooyinkan si aan u gaadho arrinta haddii aanad rajaynin inaad hawl ku dhaqaaqdo oo aad qorshaheeda dejisato naftaada runta u sheeg inaad sugto inaad maalin wax qaban doonto adigoon ku dhaqaaqayni waa mid ka mid ah caadooyinka burburin kara noloshaada iyo riyooyinkaagaba number 2 adigoo wax kasta si shakhsiyan ah u qaata wax kasta oo lagu yiraahdo iyo ficil kasta oo aad qofka ka aragto ma u malaysaa in adiga lagu la jeedo oo ay adiga wax ka qaldan yihiin caadadani waxay qofka ku sababtaa dhibaatooyin badan waxay qofka ku sababtaa xanaaq badan iyo kalsooni la'aan waxaanay kugu qancinaysaa oo aad ku qanci doontaa in dadka iyo adduunkuba ay cadow kugu yihiin balse xaqiiqadu waxay tahay in waxyaabo badani aanay adiga shaqo kugu lahayn haddii adigoo gaarigaaga saaran oo wadada socda uu qof ku caayo haddii uu qof kugu qayliyo haddii uu qof albaabka xoog kugu xidho dhammaan waxyaabahaasi adiga shakhsi ahaan wax shaqo kugu leh maaha mana aha inaad shakhsiyan u qaadato oo aad aaminto inay adiga wax ka qaldan yihiin qofka cadhaysan ee hadalka leh ayay wax ka qaldan yihiin oo uu dhib haysta dadka badankoodu dhibaatooyinka haysta waxay badanaa kula duldhacaan dadka kale haddii uu qofku cambaareeyo waxaa laga yaabaa inuu isaga laftarkiisu kalsooni darro dareemayo haddii uu qof hoonka kugu garaaco oo uu hadallo xun kugu soo tuuro isaga ayay maalintu ka xun tahay oo dhib haystaa ee adiga dhankaaga maaha waxyaabo badan oo ay dadku sameeyaan ama ay yidhaahdaan ayaan adiga gebi ahaanba ku khuseyn ee ha u qaadan si shakhsiyan ah number 3 adigoon diiradda saarin waxaa noloshaada anfacaya ee ku gaadhsiinaya hadafyadaada dadka badankoodu waxay jecel yihiin inay gaadhaan hadafyadooda iyo riyooyinkooga balse arrinta cajiibka ahi waa inaanay inta ugu badan dadku gaadhin hadafyadooda sababta ugu weyn ee aanay dadku u gaadhin riyooyinkoogu waa iyagoo ku mashquula waqtigoodana ku lumiya waxaan u dhaweynayn hadafyadooda cilmi baadhis la sameeyey ayaa waxay caddaysay in 70% ay dadku ku lumiyaan waqtigooda waxaan gaadhsiinayn hadafyadooda caadadan ah inaad waqtigaaga inta ugu badan ku bixiso waxaan ku anfacay noloshaadu waa mid ka mid ah caadooyinka ugu xun ee burburin kara noloshaada diiradda saar waqtigaaga inta ugu badan qabo waxa noloshaada anfacaya ee hadafyadaada ku gaarsiinaya iskana jooji qabashada iyo ku mashquulida waxyaabaha aan hadafyadaada ku gaarsiinayn ee dib ku ridaya number 4 cadadaada oo aad kantarooli weydo kantaroolku makaaluma waxaad doontana ma ku hadashaa markaad xanaaqdo dad badan ayaa sidaas sameeya oo cadadoodu xadka ka baxda oo hadallo aad u xun yidhaa isla markaana qayliya waqtiga ay xanaaqsan yihiin go'aano aad u xun qaata balse markay degaan ee cadadii ka baxdo qoomameeya hadalladii ka dhacay ee ay yidhaahdeen wax badanna ka murugooda caadadan ah inaad markaad xanaaqdo aad waxaad doonto ku hadasho waxaad doontana aad samaysaa waa mid ka mid ah caadooyinka noloshaada saamaynta xun ku yeelan kara markaad xanaaqdo ha u ogolaan inay cadhadaadu xadka kaa saarto markaad xanaaqsan tahay waxa ugu fiican ee aad samayn kartaa waa inaad aamusto markaad xanaaqdo aamus ka hor inta aanad wax odhanna iskaga baax oo ka tag meesha aad ku xanaaqday kadib dhowr jeer neef dheer qaado oo deji naftaada dhowr minitna naftaada waqti la qaado oo ka fikir sida ugu fiican ee aad u xalin karta xaaladan daqiiqado yar oo aad aamustay naftaadana kantarooshay ayaa kaa joojin kara qalad aad u xun oo aad samayn lahayd inaad aamusto markaad xanaaqdo cadhadaadana kantarooshaa waxay kaa badbaadin kartaa qoomamo aad noloshaadoo dhan ku noolaan lahayd number 5
isbarbardhig indhala-aan ah. waxaad aragtay qof muuqaalkiisu fiican yahay oo waddada lugaynaya, markii uu ku dhaafayna waxaad ka soo qaaday in noloshiisu taada aad uga fiican tahay oo ay noloshu u fudud tahay adigoon qofkii waxbaba ka ogeynba. caadadan ah inaad naftaada u barbardhigto dadka kale si indhala-aan ahi waxay ku horseedi kartaa dhibaatooyin badan, waxaanay kugu sababi kartaa qanaaco la-aan aanad ku qancin noloshaada. odhaah ayaa waxay tidhaahdaa isbarbardhigu waa tuugga farxadda. haddii aad qofka wax fiican ku aragto, markaaba ha ka soo qaadin inuu qofkaasi noloshiisoo dhan kaa fiican yahay. haddii uu dhan kaaga fiican yahay, waxaa jira waxyaabo badan oo aad adigu kaga fiican tahay oo qofka laftarkiisu uu adiga kugula dhacsan yahay rajayn lahaana inuu yeesho. markaad isbarbardhig samaynayso, samee isbarbardhig miisaaman oo xasuuso adiguba dhammaan sifooyinka fiican ee aad leedahay. haddii aanad lahayn sifo uu qof leeyahayna, ha ku mashquulin waxaanad haysan ee diiradda saar waxa aad haysato. namber 6, moobilkaaga oo waqti badan isticmaalkiisu balwad kaa noqdo. tiknolojiyadda oo ay ku jiraan mobilesku waxaa loo sameeyey inay nolosheena inoo fududeeyaan. marka dhinaca fiican loo isticmaalayana telefoonadu aad ayay inoogu faa'iido badan yihiin. balse ka waran haddii moobilkaaga isticmaalkiisu uu balwad kaa noqdo oo aad maalintii wakhtigaaga inta ugu badan ku lumiso, miyaanu burburinayn noloshaada? mobilka oo isticmaalkiisa faraha badani uu balwad kaa noqdaa wuxuu kaa luminayaa wakhti aad u badan oo noloshaada ah. wuxuu kaa luminayaa wakhti aad xirfada baran lahayd, wakhti aad naftaada ka shaqayn lahayd, wakhti aad ganacsigaaga ka shaqayn lahayd, iyo wakhti aad qoyskaaga iyo dadkaad jeceshahayba la qaadan lahayd. waxaa jira dad aad u badan oo hadafyadooda nolosha gaari lahaa haddii aanu moobilku wakhtigooda ka lumin lahayn. moobilkaaga oo aad wakhti badan ku lumisaa waa mid ka mid ah caadooyinka ugu xun ee burburin kara noloshaada. namber 7, naftaada oo aad ka shakido. inaad naftaada iyo awoodahaaga aad ka shakidaa waa mid ka mid ah caadooyinka xun ee burburin kara noloshaada. inaad dareentay inaanad qiimo lahayn, inaanad xirfad kugu filan lahayn, inaanad caqli badnayn iyo waxyaabaha la midka ahiba waxay kaa joojin karaan fursado badan oo cajiib ah oo ay noloshu ku siin karto. dhammaan waxyaabahaasi waxay ka yimaadaan fikradaha xadidan ee aynu barannay wakhtiyadeennii hore. haddii aanad fikradaha iska saarin oo aanad xaqiiqada waajihinna, weligaa ayay ku haysan doonaan, caqabadna kugu noqon doonaan. aamin awoodahaaga oo marka uu kugu soo dhaco fikir kuu sheegaya inaanad shaqadaa u lahayn xirfad aad ku qaban karto, xaggii aad aqbali lahayd fikradda ee aad qaadan lahayd, naftaada u sheeg sidan: waan ku habboonahay shaqadaa, waanan qaban karaa, wixii aanan garanayna waan baran karaa. aamin awoodahaaga. aad baad ugu mahadsantihiin daawashada muuqaalkan. haddii aanad hore subscribe u saarin channelkeena wax ka baro, subscribe hadda saar, sababtoo ah waxay noo soo socdaa oo aan si joogto ah u soo gudbin doonaa muuqaallo iyo xogo aad u cajiib ah. sidoo kale like saar fiidiyogan, lana sii wadaag oo gaadhsii asxaabtaada. waa inoo muuqaalkeena kan xiga.